بسم الله الرحمن الرحيم أصحابي السلامي وحال كان هل إلا بينا ربا يعني هل إلا إنا كده عربا هذا الكتاب وقفايا أميرة يعني واحد كور فيديو صوت وقع أبايا وتأسينا ما أركن الفيديو أميرة لكن هذا الصو أركن يوتيوب أنا نحوريها أيضا عدك قبل الصوت جيسو أو ده هيسو إن الصوت بوقت قبل أس ديار ومهن عدك قبل أو تيك توك الصوت جان وان دكستي نهارت أميرة أبايا حتى even hadda gabadhaas maba idinka qaldana sababto qofka xanuunsan asaa laga rabaa in la soo booqdo isbitaalka ku jirta ma weydiin kartiin because isku magaalaad tihiin ana maanta Nairobi haddaan ku xanuunsato haddaan lambarkayga la waayo ama aan qaban waayo qof kaloo ii xigo dad haddaan dad la ka siin qof kaloo garanay ama qof la weydi karaa so ina wallahi maanta codkeeda baa YouTube ala soo fariisato gabadhii one day ka soo wareegan cunugeedii oo la xabaalay oo aad Amiiro ka soo jawaabtid wallahi oo billahi tala abay ma fiicnaan hadii la isqabsan waayeen dadka been isku sheegaan baant goor walaashiya tahay hooyaa tahay wiil haysata curud ku ah gabadhaas maanta waxay isbitaal kula jirto oo ka geeriyoodo wiilkeeda curudka dhibaato dareemaysaa hatta wax kasta day jiraan iska aamusteed walba hatta bilooyin ama maalmo ka soo wareegtaan arinta hatta ka hadashid ina ka hadlan in kasto fiicnaan laakiin hadda gabadhii oo abaayo murugeysan ayaad meel u soo fariisatay abaa wallahi waxuna sameysay hadda please bal videogaas iska bixi muslimkina way kula yaabihiin wallahi Amiiro shalay ma xasuustaa sidii lagu garab taagnaa aniga shalay ma ka dhibaataysnaa gabdho Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed sa ii garab taagnaa inuu aniga rasmi ah maanta adina gabar Soomaaliyeed tahay shalay waa lagu garab taagnaa waana walaasha garab istaagtay oo isku magaalo joogtiin hadda garab istaagi weysa shaqsi ma magacaabin kulligiin ina ka maqneedeen sheegtay ina iska aamusteed walbo tacsiya u taala abaa at least ina gurigeeda raasay ku soo dul baroortid hata oo qaladkaagi ad qalad kala ku sixin bal hadda Amiiro ad video waa soo dubtay qof kale ma leeysi joogo video soo dubin gabadha soo eedeenen qof xanuunsan sababta ay codkaas kugu soo dubtana codkooda dhageysanay wixii ka hadlayso xeed intaasaan ku jiray waa isoo booqan weyseen betraada ana ma go'aan waxaan ku gaaray inaan idinka qabanin because one day two days dii lagu soo booqan lagu maqli waayo qasab waa la ismaqliye oo qod baa qaadaysaa qof xanuunsan arintiisa ma yaro wala antarad hooyadii markuu dhibka gaaray gurigeyga meel aan kala istaaga dadka weyne wadada nambarkayga hayn gurigeyga garnayna wallahi ii yimaadeen reer Nairobi dad aan iska dhaaf dadka aan ayaga isnacib wax isku nacib moogniyo qofka kale horumarkiisa ma ka xuntihiin maxaa isku nacibtihiin wallahi